calaykum Perfectis. Kusoo dhawaada podcastigeenna Perfect Sport with Fatima. Waxaan rajeynayaa dhammaantiin adduunka meel walba aad ka joogtaan iyo xaalad walba aad ku sugan tihiin inay caafimaad qabtaan. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaano sadaqada caqliga ku dheehan. Marka sidii caadada noo ahayd, mowduuceena waxa uu kala qaadi doonaa ilaa 3 qaybood. Qaybta koowaad oo ah koodii hore in isla fahamno sadaqada ka hadlayna maxaa waay, sadaqa maxaa la dhahaa. Tan labaad oo ah noocyada sadaqada oo jiraan. Tan saddexaad oo ugu muhiimsan oo ah waa maxay sadaqada caqliga ku dheehan. In isla fahamno maxaa waa sadaqada caqliga ku dheehan. Haddii aan ku bilaabo waa maxay sadaqo. Sadaqo waxaa la dhahaa wax kasta oo bini'aadamku uu bixiyo asagoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ag dhawaanay ayaa lagu magacaabaa sadaqo. Marka sadaqadaas waxay noqon kartaa wax la taaban karo iyo wax aan la taaban karin. Waxyaalaha la taaban karo oo sadaqa dhihi karna waxaa ka mid ah sida maxaa la dhahaa maalka, waa waxa hadda kaliya aan naqaano badanaa aan sameyno, ama inaad dhul sadaqaysatid, cunno sadaqaysatid, wax la cabo sadaqaysatid, wax la xirto sadaqaysatid. waxyaalahaas iyo wixii la mid ah ayaa dhihi karnaa sadaqada la taaban karo. Sadaqada aan la taaban karin waxaa ka mid ah inaad cilmigaaga wax yar aad sadaqaysatid, ama xoogaaga wax yar aad sadaqaysatid, qof bini'aadan aad kaalmaysid iyo wixii la mid ah oo aan la taaban karin laakiin isla markaasna aad sadaqaysan kartid ayaa la dhihi karaa sadaqada aan la taaban karin. Qaybta labaad oo ah noocyada sadaqada jirta maxaa waaye. Waxaa jirto 2 nooc oo sadaqa ah. Sadaqada koowaad waxaa la dhahaa sadaqada waajibka ah sida zakada bini'aadamka oo ka bixinayo maalkiisa. Sadaqada aan waajibka ahayn oo ah midka dadka badanaa ay sameeyaan way fara badan tahay. Waxaa ka mid ah in qof maskiin ah ku sadaqaysatid lacag ama cunto, dhar, biyo iyo wixii la mid ah. Waana sadaqad u caansan oo qof walba bini'aadam badanaa uu sameeyo. Tan labaad oo ah maanta marka familkaaga aad siinaysid lacag, hadii ahaato biilkaas inuu aabaha siinayo ama hooyada ay siinayso, ama wiilka ama gabadha guriga ugu weyn, ama eedii adeer gurigaas biil siinayo, biilkaas ay soo siinayaan. Haduu qofkaas u niyeysto sadaqo waxaa la dhihi karaa sadaqo waaye. kun walbo aad familkaaga aad siisid waa sadaqa ayay ku tahay. Marka waxaa fiican familkaaga waxa aad siinaysid inaad u soo niyeysatid sadaqa Ilaahay dartiisa. Adina Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir badan ayuu kugu siinayaa, maalkaaga wuu kuu barakeynayaa, farajna wuu kugu furayaa. Tan kale oo ah dhoola cadeynta. Nabigeena calayhi afdalu salaatu wassalaam wuxuu dhahay tabassumuka fi wajhi aqiika sadaqa. Dhoola cadeynta oo dhoola cadeynaysi walaalkaaga waa sadaqa Ilaahay oo agtiisa ah. Tan kale oo ah inaad jidka ka qaadid wax walbo dadka dhibaayo. Marka haday ahaato jidka oo caadi dadka ay maraan, ama ahaato jidka gurigaaga ama goobta aad ka shaqaysid, wadadaas yar aad maraysid inaad ka qaadid wax walbo dadka dhibaayo. Marka hadaa heshid meel aad ku ridid oo qashinka lagu rido way fiican tahay. Hadii aadan helin hadaa isku day inaad gees dhigtid at least wadada ka qaadid. Waxaa kaloo sadaqa ah hadalka wanaagsan. Inaad bini'aadamku ku hadalo hadal wanaagsan oo ixtiraam ku jirto waa sadaqa Ilaahay dartiisa ah. In aad sadaqaysatid cilmiga Ilaahay ku siiyay, ama xoogaaga ama waqtigaaga, inaad qof bini'aadam aad ku caawisid, ama cilmiga Ilaahay ku siiyay wax yar ka mid ah qof bini'aadam aad ku caawisid. Ayu nooc cilmi ay ahaato Ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqo ayuu kugu qorayaa. Cilmigaasna Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu barakeynayaa. Inaad agoon kafaalo qaado, ama agoon aad ka bixiso haday ahaato waxbarasho, ama cunno aad ka bixiso, ama xilliga ciidaha aad dharka ciida u iibisid, sadaqa ayay ku tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir ayuu kugu siinayaa. Inaad ka qayb qaadatid hadii ceel la qodayo ama masjid la dhisayo inaad gacan ka qaadatid. Markii la aruurinayo contribution-ka ama lacagaha lagu dhisayo masjidkaas ama ceelka lagu qodayo, inaad wax yar hadaa ku dirsatid qof walbo ceelkaas ka cabo, ama qof walbo masjidkaas ku dukado,
adiga maxaa lahaa ilaahay subxaana watacaala ajir ayuu kaa siinaya. marka intaas ayaan kusoo koobaynaa. noocyada sadaqo way fara badan yihiin, ma soo koobi karno. marka haddana waxaa kaloo fiican wax walba aad sameynaysid inaad sadaqo u niyeysatid. marka mawduuca niyada waa kasoo hadalnay, waa mawduuc aad iyo aad u baaxad weyn. marka qofka bini'aadamka waxaa fiican qaybtaas inuu maxaa lahaa maalgashto. maalgashigana ma aha inaad lacag bixisid, laakiinse wax walba aad sameynaysid inaad u niyeysatid ilaahay dartiisa, amaba u niyeysay waxaan camalkan u sameynaa ilaahay dartaada u sameynaa, sadaqana way ii tahay dheh, ilaahay ajir iyo xasanaad ayuu kuu siinaa. haddii aan u gudbo qaybta saddexaad oo ah waa maxay sadaqada caqliga ku dheehan. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku dhahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu. macnaha kitaabka ku xusan waxaa waaye wax walbo aad bixisaan eeba ayaa idin bedeli doona. macnaha uu fudud waxaa waaye wax walbo aad bixisaan waxaas ayuu ilaahay idin bedeli doonaa amaba idin soo celin doonaa. marka waxaa ku fikirtaa markaa wax bixinaysid waxa markaas adiga u baahan tahay ku salee, amaba meel culeyskaa saaran yahay ku aadi si ilaahay subxaana watacaala culeyskaas uu kaa qaado, amaba waxaas aa u baahan tahay aa u heshid. tusaale ahaan waxaan ka bilaabeynaa qof shaqo raadis ah inaa ka caawisid qof shaqo raadis ah inuu shaqo helo, amaba qof aad taqaanid maxaa la ugu soo hadal, amaba shaqo hadaa meel lasoo dhigo inaa u dirtid linkiga, amaba sida loo apply gareeyo amaba CV loo qoro aad ka caawisid qof. adina ilaahay subxaana watacaala meel aad shaqo u baahan tahay, shaqadii rabtaa iska ahaatee ilaahay subxaana watacaala adina kaa caawinaya, maadaama qofkaas aad ku sadaqaysatay inuu fursad u helo aad ka caabisay. adina ilaahay subxaana watacaala caawinaadaas aad bixisay ayuu kuu soo celinaya amaba kuu bedelaya, wuxuuna kugu bedelayaa meel markaas adiga u baahan tahay. amaba inaa caawisid qof rabo inuu scholarship raadiyo. tusaalahaan waxaa tahay qof scholarship rabo inuu helo, marka waxaa caawinaysaa qof scholarship rabo inuu helo. qofkaas waxaa ka caawin kartaa inaad tusisid meelaha scholarship kala soo dhigo, amaba ka caawisid scholarship kaas apply gareynayo, sidoo apply gareynayo, waxyaalaha markaas scholarship kaga baahan yahay, sida uu helayo, warqada hadii ahaatay waxa la qorqorayo, sida uu qoro. maadaama qofkaas fursadaas ka caawisay, adina ilaahay subxaana watacaala fursad scholarship adiga aad rabti ayuu kuu sahlaya, amaba fursad kale oo markaas aad u baahan tahay inaad heshid fursaday ahaato ayuu ilaahay kaa caawinaya. waa sadaqo caqli ku beehan, waxaa caawinaysaa wax adiga u baahan qof raadinaya si adina ilaahay subxaana watacaala waxaas uu kugu sahlo. tusaale ahaan waxaa tahay qof u baahan inuu helo support amaba kaalmo, noocay rabto kaalmaha ahaatee, inaa qof kale ka caawisid kaalmadaas inuu helo aad ku sadaqaysatid ilaahay dartiis adoo niyeysanaya, adigana ilaahay subxaana watacaala meel adiga markaas kaalmo ugu baahan tahay ayuu kaa kaalmeynaya. kaalmadaas waxay noqon kartaa qof u baahan matalan in maxaa lahaa dhaqaale ahaan la kaalmeeyo ama la garab istaago. mar walba qofkaas maxaa lahaa kaalmada dhaqaalada aad ka kaalmeysid adina meel dhaqaale ugu baahan tahay ayuu ilaahay kaa kaalmeynaya. matalan hadii qof ka kaalmeysid maadaama qof wax soo boosti gareynayo ama beelaha wax soo dhigayo, inaa comment fiican u dhigtid amaba like aad ku caawisid, adina ilaahay subxaana watacaala meelaad wax ugu baahan tahay ayuu kaa caawinaya. waxaa kale oo qaybtan soo geli kara cilmiga. hadduu ilaahay subxaana watacaala cilmi ku baray, haday ahaato cilmi weyn, cilmi yar, cilmi maadi amaba cilmi diini ah, qof bini'aadin wax yar inaa ku caawisid. hadii zaid u fiicanta sida internetka wax loo raadiyo, qof markaas oo kusoo weydiistay inaa qaybtaas ka caawisid, adigana wax markaas internetka ugu baahan tahay raadiskeeda ayuu ilaahay subxaana watacaala kaa caawinaya. hadii wax kale oo cilmi oo kale ku saabsan qof bartid aad ka caawisid qofkaas inuu cilmigaas barto, adigana cilmi markaas aad raadinaysid ayuu ilaahay subxaana watacaala kaa caawinaya. ama qof kale kuu soo diraa si markaas cilmigaas u baratid. hadii aad taqaanid qof maxaa la ganacsi leh, ganacsigiisa inaad dad kusoo xirtid, dad aad dhahdid meeshaas fiican taga, ama waxaas aad raadinaysid meeshaas ka heli kartaa taga, adina ilaahay subxaana watacaala meel sidaas camal ayuu kaa caawinaya
inaa heshid sida ugu fudud. Marka waxaa fiican sadaqo walba aad bixinaysid inaa ku aadisid wax markaas adiga u baahan tahay ama meel culeyskaa saaran si Ilaahay subxaanahu wa tacaala culeyskaas uu kaaga qaado ama waxa aad rabtid aad heshid. maanta markaa dad kale ka caawisid waxa ay rabaan inay gaaraan adin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka caawinaya inaa gaartid inaa heshid meesha ama aad gaartid meelaha adeeg aad rabtid. maanta badankeena markaa wax sadaqaysanayno waxa uu yar haday ahaato ama wax maadiga ah sadaqaysanayno badankeena niyo mucayan ah ku xirno yani kunkii 2000 sadaqaysanayno waa iska dibnaa waa ka sii soconaa. marka waxa fiican intaas yara sameeyay niyad inaad ku xirtid. tusaale ahaan waxa tahay qof culeys saaran kunkii 2000 sadaqaysanaysid inaad niyeysatid culeyskaas ku saaran inuu Ilaahay ka qaado ama badeemanka lagu leeyahay inuu Ilaahay ka fududeeyo. qof waxa tahay maxaa la shaqo raadis ah ama cilmi raadis ah ama wax baa raadinaysa inay heshid ay rabtaan nolosha dhexdeeda inaa waxa sadaqaysanaysid Ilaahay waxaas isaal ah dhahdid sadaqada maxaa la ku fududeynaysa waxaas inay heshid. marka waxa fiican wax walba aad sameynaysid ama sadaqo walba aad bixinaysid inaa niyo mucayan ah ku xirtid si Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas uu ku sii. hadii markaas xiligaas wax sadaqaysanaysid aadan aysan kugu soo dhicin niyo mucayan ah marka waxa fiican inaa niyeysid inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxana sadaqaysatay oo ku dhiib bangi yawmal aakhira. marka hadii aysan jirin wax adeeg markaas u baahan tahay ama aysan kugu soo dhicin u niyeysid lacagtaas ama waxoogaas ama cilmigaas sadaqaysatay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir xasanaad kugu sii bangi yawmal aakhira oo ku dhigo. marka mawduucan maanta meesha ku egtahay waxa fiican wax walba sadaqaysanaysid ama wax walba bixinaysid inaa ku saleysid wax markaas adiga u baahan tahay si markaas waxaas aad heshid. insha Allah waxa idin rajeynaa nolol wanaagsan oo saameyn leh. insha Allah khayr ayaa idin dhaafay. maca salaama.